نبضي معاني نعود قولي نبضي معاني نعود قولي نقا يبر وقذاك معلق وقبول انت الناصر مانيو دار نفقات حريص تايباي يدنا وروني نفتي ذاك وجعلو رجال مسقامي وناوي ليسي نبضي صاحب ديال waxaan aadanaa badda hadda gabadha ka wada dalxiisayaasha qayb ka mid ah halkaas asaa soo socda naqa iyo barwaaqada nimca lagu qabo inta naasir maanu نفقات نحارس تايباي نيدنا وروني نفتي ذاك وجعلو رجال نسقامي وناوي ليسي waxaan ku sugannahay Boosaaso nala socdo waxaan aadanaa badda annaga dalxiisayaasha insha Allah la socdo wanaagsan qaarasho badan nala socdo saaxiib yaal waxaan ku sugannahay baddii socdo wanaagsan oo dalxiisayaal marka socdo wanaagsan saaxiib yaal socdo wanaagsan safarkii aan ka soo baxnay Garowe imika waxaan taaganahay magaalada Boosaaso iyo baddeeda saa ugu socdo saaxiib yaal saad u jeedaan dalxiisayaashii oo dalxiisayo oo ku sugan caasimadii ganacsiga Boosaaso saas oo socdo nabada meelo badan bay tegi doonaan insha Allah nala socdo saaxiib yaal هاي وعن كاوي سيدا نيجا موقت أصحاب تقاليقا وشركة الحيس oo dalkeena laga leeyahay Soomaaliyeed siiba Puntland shirkadani magaceeda waxa la yiraahdaa Sahal Surface and Tours Company manaha wax walba waxay sahlaysaa waxyaabaha surfaceska iyo waxyaabaha dalxiiska ku saabsan oo waliba dhameystiran numberkeeda iyo halka laga xiriirayo halkan commentiga nigula wadaagaya shirkadani Soomaali iyo ajaanib iyo maartay cid walba ama dadkeena Soomaaliyeed local kama Puntland iyo Soomaaliya meel walba degan iyo dadka ajaanibta ah oo dadweynaha ka imaanaya intaba si system oo sharcigooda cid ajaanibiga sharcigooda ama immigration-ki wax walba uga soo dhameeyaan dalka way keenaan cidii Soomaaliyeedna walba waa Soomaali haduu de passport kala watay haduu kii Soomaaliyeed ku imaanaya labadaba si wanaagsan bay u soo dhaweeyaan waxa ka mid ah waxyaabaha surface-ka ay qabtaan inay qorshayaasho dhan ku dejinayaan inaad magaalooyinkii dalxiiska ku haboona ama goobihi ku haboona ay ku
timetable ku sameynayaan xilliga baxaya xilliga la soo noqonayo wuxuu dhan iyagu ku diyaarinayaan cuntada totalka wuxuu dhan wax ku baxaya wixii ayaabaha amniga ku saabsan halka loo hooyanayo halka lagu sugnaanayo inta saacadood la sii soconayo wuxuu dhan bay wargelin ku sii siinayaan halkaad ku dageysay ku sii diyaarinayaan time-ka dhan maartay iyagu ku manage kareynayaan adigoo safe happy ku faraxsan oo maartay wixii safarka ka galay oo dhanba ha ka yiri ayaad gurigaaga ku soo noqonaysaa waxa kale ku dheer oo kula socda safarka telefoonkaagi waxa aad iska isticmaalaysaa sawirada qaadan laakiin iyagu cameraman-koodii oo meelihii ku habboonaa iyo sawir qaadistii oo dhan waxoo dhan bay kugu jiraan wixii qiimaana insha Allah iyagu baad lagala xiriiri doonaa qiimaana ku eriyeenin maaragtay soo dhaweyntii ku jirto qorshihii oo dhan lagu hayo lagula wadaagayo wixii tala aad ku kordhisanaysaa adigu marka gawaaridii wax walba diyaar kugu tahay anytime alla soo xiriiri karto ay diyaar ku yihiin meel walba dalkeena kamid ah siiba gaar ahaan Puntland ay ku geenayaan dadkaasi waa dad Chinese si sharciga dalkeena ku soo galay si sharciyana kaga baxay si sharciyana loo dalxiis geeyay waa garowto Boosaaso marka qoladan numberkooda Sahal Surface and Tourist Company shirkadda Sahal Surface-ka minaha iyo dalxiis qaybta dalxiiska ku jirto insha Allah numberkooda iyo WhatsApp-kooda ay isticmaalaan halkaas aan soo galin doonaa commentiga qaybta commentiga halkaas aad kala xiriiri doontaan cidii dalxiis u baahan ama local ama dadkeena maartay deegaanka degan ha noqdo ama qoladeen qurba joog ama dibad ka soo imaanaysa ama qofka isagoona Puntland ama Soomaaliya inna ka garan kara maartay family badan aan adoon u joogin ama dalxiis ku habboon isagii caruurtiisa aysan gali karin wallo fuudeynay waa la soo xiriiri karaan wuxuu dhan ayaga u damaanad qaadaya qorshahoo dhan ayaga u haya inkastoo mar walba ay talada adigana ku weydiinayaan la tala wadaaga la leedahay sababta qofku waqtigu baxayo iyo marka laga yimaado walba waxa muhiim ah inuu yiraahdo mina qaabka maaliguna wax uu doonaya xafiis bay leeyihiin page bay leeyihiin wuxuu dhan maartay halkana waxay damaanadana waa muhiim halkan ayaa insha Allah wixii xogaa numberkooda kala wadaagi doontaan aad ka wareysan doontaan soo dhawaada dalkiina hooyo xeebaha ugu dheer Afrika dalkii iska lahaa dalkii buurihii iyo dhulkii dalxiiska iska lahaa dalkii magaalo walba cimiladeeda gooniga u ahayd lahaa Boosaaso yara diiran hadaad tagto Garowe yara qabow hadaad ka tagto waxaan ku yiri Muqdisho roobka ka daaya aad gasho waa jawi meel walba jawi yaro macaan oo gooniyaad ugu tagaysaa mar walba ku soo dhawaada xilliga xagaaga xilliga maartay samarka xilli walba maartay dalxiiska kugu habboon aad u qorsheysatay wada soo xiriiri kartaa iyaguna waa heegan diyaar bay ku yihiin ku soo dhawaada Sahal Surface and Tourist Company waxyaabo kale oo dheer ay ku dhameyn karaan oo kale waxa kamid ah qofku markuu soo socdo inay hotelka u sii qabanayaan airportka ka soo doonayaan si meeshii sii dajinayaan waxyaabihii uu localka uga baahnayo dhan xataa even guri haduu kireysan magaalada degayo hadii uu guri ka iibsanayo inay dilaalintii ku xiraan hadii dhul waxa wuxuu dhan waa Sahal Surface and Tourist haduu qofkii doonayo inuu gaari xataa inuu iska kireysto intuu magaalada uu joogo waxyaabo badan Surface badan bay u qabanayaan minaha wax la soo koobi kara maaha magaalo walba minaha team baa u jooga soo dhaweynta u qaabilsan qofka haduu magaalo madaxdii Puntland ka soo degayo haduu Boosaaso waxa u baxayo haduu eel aadayo haduu dalxiiskiisa haduu magaalada gudaheeda hawlo badan uga baahan yahay hadii qof family qof soo diray oranaya qofkaas halka ku soo beegan inana kama garanaya minaha airportkina loogu tago hawshiisa la dhameeyo meeluu doon inuu tago hal la geeyo minaha waa waxyaaba si sharci qofku uu marayo wixii dhan uu maartay wadooyinka wixii dhan loo tilmaamayo iyo isoo waxba ka khaldamin happy oo hadhoona hawshiisa u dhamaan doonto wax walbana la galabay istaagayo oo maartay niyadiisa marka ku jira marka ku soo dhawaada waa shirkadaas company-ga shaqaabka u shaqeeya dhalinyaro badan oo local dadkeena baa iskale ku shaqeysta aamina ma garanaysaa sidaas insha Allah ku socon